kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. halkaad kala soconaysaana waa channelka ogaalka audio som. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. si tartiib ah oo taxadar badan ayaan ugu gaagaabsaday dhinaca iridda, anigoo aan furin ayaan dhagta aad ugu dhaweeyay si aan wax sanqadh ah uga maqlo cidda bannaanka taagan ee soo garaacaysa ilinka qolkayga. maya, waxba ma aanan maqal, sidaa awgeed anna waan ka baaqsaday inaan furo iridda, waxaana dib ugu soo laabtay gogoshaydii. xoogaa hurdo la'aan iyo cabsi yar ah kadib, diihaalkii hayay ayaa mar kale i siiyey hurdo oo waxaan jiifay ilaa aroortii uu waagu dilaacay. quraac kadib waxaan soo fadhiistay geedkii ku yaalay guriga hortiisa. halkaas ayaan cabbaar isla hadlay keligay, aniga oo la sheekaysanaya naftayda. sideed ka yeeshaa marxaladan ku haysa? xilligaas isma ogi, laakiin isla hadalkaygu maahan keli ah mid aan gudaha ama qalbiga iskala sheekaysanayo, ee sidoo kale waa mid aan mararka qaar si toos ah afka uga hadlayo oo ruuxa ii dhow uu maqli karo, kan iga fogna uu dareemi karo dhaqdhaqaaqa bushimahayga iyo gacmahayga wax sharaxaya. waxaan arkay miyaanay ahayn wax uu qof abwaan ah la gabyi lahaa. walaashay Zahra oo aad daawashadayda ugu mashquulsanayd baa ii timid markiiba, waxayna hadal iiga bilowday, see tahay walaal? waan fiicnahay abaayo. Zahra: allah mahad leh, ee xalay hurdo wacan baad heshay, maasha allah. mar aan xilli dambe anigoo war kuula soo ordaya kugu soo garaacay waad iga furi weyday. waxaan ku warceliyey oo saqdii dhexe waxa igu soo garaacayay iridda ma adigu ayuu ahaa? haa aboowe, war aan maqlay baan rabay inaan kula wadaago. waxaan mooday inaad soo jeedo maadaama aad fiidkii galabkii seexatay. ka gudub, hadda maxaad dareemaysaa caafimaad ahaan? aad baan u ladanahay abaayo, ee warka hadda ii sheeg bal. waxay tiri, haa, wax kale ma ahan, waxaan maqlay ninkii walaal Maxamuud ahaa oo maamada la soo hadlaya isagoo ku adkaysanaya in aadan weli adiga helin caafimaad taam ah oo lagugu celiyo meeshii jinka. maamadana waxay lahayd, kaalay arag adigana oo wiilka aad buu u fiican yahay. ugu dambeynna waxaa lagu ballamay inuu maanta xaafadda yimaado si uu u hubiyo caafimaadkaaga. ee waxaan kugu soo cararay walaalow inaan kuu sheego intaas, kuna faro inaad isdejiso, waayo ma rabo inaad xaaladii xumayd mar kale gasho. oo sabab? maxamuud ma asagaaba kala jeclaa noloshayda iyo geeridayda? muxuu caafimaadkayga uu u shakigelinayaa? ma fahmin sabab ayaan ku idhi. haa, waa runtaa, laakiin ninkaas kollay wuu imane, adigu taxadar walaalow. bal waa yahay abaayo, mahadsanid. maxamuud waa curadka aabbahay, laakiin aan kala bahnahay. waa 5 wiil iyo gabadha Sahra ah oo isku bah ah. aniga bahgooni ayaan nahay, weliba xagga hooyo madi ah. hooyadayna anigoo yar bay ifka ka tagtay, waxaana ay soo korisay maamada aan la noolahay oo ah eedaday ama bahdii weyneyd ee aabbahay uu ka tegay. isagu waa ganacsade, haddana labadeenu aad isuma jeelin, cidnana ma heshiisiin karto, waayo 4 wiil ee kale way ka maqan yihiin dalka. saaka waxa ugu weyn ee iga guuxaya ayaa ah, muxuu kaa doonayaa Maxamuud? haddana waxaan isdhahaa, isdeji, waa walaalka oo doonaya caafimaadkaaga. inta aan sidaas u fikirayo, Sahra way ka kacday agtayda oo hawlo u taalay bay qabsanaysaa.
anigoo isweydiinta iska wata ayaan mar eegay horteeda waxaa isla meeshii hore iiga soo muuqatay gabadhii yareed indhaha ayaan iska masaxay waan eegay haddana hubaal waa iyadii intaan u yara kacay ama uu istaagay dhankeeda baan is-celiyey haddana waxaan is-idhi mar kale haddana ha dhaxlin dhibaatadii aad ogeyd waxaan isku qabtay indhaha aniga oo aanan halkaygii ka kicin waxaan aqriyay dhowr suuradood oo gaagaaban aniga oo indhaha isku haya ayaan maqlay guuxa gaari agteeda la istaajiyey markaan furay indhaha waxaa soo istaagay waa gaariga walaalkee Maxamuud wuxuuna iiga beegnaa halka ay taagnayd gabadha markaas intaan kor u istaagay si fogna u qooraansaday meeshii ayaan eegay oo maba joogto gabadhii kadib baan Maxamuud oo ka soo degay gaariga oo aniga ii eegaya aan salaamay kadibna waxaan isku raacnay dhanka guriga arinta ugu dhow aan ku fashilmi karo ee Maxamuud doonayo inuu iga guuleysto ayaa ah inuu isu'aalo maxaa kugu dhacay bal nooga soo sheekee haddaan qisada bilow iyo dhammaad sheego waxay noqonaysaa inaan waxba iska kay bedelin ama aan jilliin been ah sameeyey Maxamuudna way u rumoobaysaa inaan weli isqarinayo oo aanan helin caafimaad taam ah sidaa darteed su'aashiisii ilaah ayaa igu beegay inaan dhaho waxba ma xasuusto anigu oo inta dhowr jeer la igu celceliyay haddana aanan sheegin wax ka badan ma ogi anigu taas waxa ay ka dhigan tahay inaan ahaa ruux lagu dhex jiray xilligaas haddana ka caafimaad qaba wax kasta oo soo maray intaas kadib Maxamuud wuu ku sii adkaystay go'aankiisa ah inaan aniga weli caafimaadin ilaa markii dambe intaan xanaaqay aan idhi malaha jinka iyo waalidaba waa waxaad adigu ila soo maagtay waryaa ilaah baan kaa magan galay ee iidaa noloshayda hadalka wuxuu gubay Maxamuud oo inta uu markiiba istaagay yiri waxa tahay waad arki doontaa kadibna wuxuu gudaha la galay maamada oo ay talo gooni ah wada qaateen waxa iga go'an hadii ay maamada hadalkaas ku raacdo inaan ka tago xaafadda oo dhan hadii ay ka diidana aan ogaado xaqiiqada waxaan arkay iyo sababta ninkan Maxamuud ah uu heerka u shaki gelinayo caafimaadka noloshayda mararka qaar aadanaha waxay halista ugu badan kaaga timaadaa qofka kugu dhow laakiin waa inay mar walba sabab jirtaa haddaba aniga iyo Maxamuud ma jirtaa sabab shirqooladan midkeena ugu fikiri karo waa maxay sababtaas waxaan cabaar ka wada sugo natiijada wada hadalka maamada iyo Maxamuud anna aan heegan sii ahaado waxaa mar qura igu soo oroday Sahra oo ilmeynaysa waliba ku dhawaaqaysa hadal aan sax ahaan loo fahmi karin ma waxay leedahay maamadii waa la dilay maye ma waxay leedahay war carar oo baxso maya armay leedahay warrun baan soo ogaaday kaalay intaasba mid uu yahay ma aqaan la soco qaybta shanaad